Dhiirigelinta isku tashiga shacabka iyo dhiraynta degmooyinka waa qayb ka mid ah arrimaha hortebinta leh ee ciidanka BSF. Ciidanka BSF oo ka duulaya isku tashi ay sameeyeen shacabka magaalada Carmo, kaas oo ay ku dhisteen laamiyo dhex mara magaalada, ayaa kun geed gaarsiiyay degmada Carmo ee gobolka Bari. Dhirtan ayaa loogu talagalay in lagu beero laamiyada cusub si ay uga qayb qaadato quruxda iyo bilicda magaalada Carmo. Waxaana lagu wareejiyay duqa degmada Carmo Nabadoon Maxamed Ibraahim Faarax. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay ciidanka PSF ee dawladda Puntland ay maantay saraakiisheedii iyagoo ku mahadsan noo yimaadeen oo lagu yaqaanay mar kastaba doorka ay ku leeyihiin horumarinta magaalooyinka sida bilicda iyo ilaalinta deegaanka. maanta waxaan loo keenay dhir gaaraysa kun geed. waan uga mahad celinaynaa ciidanka PSF oo runtii gacanna dalka ku dhisa, gacanna amniga ku suga. saraakiisha iyo madaxda ciidanka waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. degmada Carmo iyo bulshada degmaduba way idinka mahad celinayaan. dhirtani waxay ka mid noqon doontaa oo ay qayb ka noqon doontaa wadooyinka cusub ee magaalada laga hirgeliyay ee laamiga ah iyo guryaha iyo dariiqyada kale ee magaalada. waa magaalooyinkeenu waxay u baahan yihiin in la beero, in dhirta laga beero. dhirtu hadda waxaanu taaganahay meel qorax ah, geedka hoostiisa iyo qoraxdu isla mid maaha. marka ciidanka PSF iyo madaxdoodaba waxaan uga mahad celinaynaa saraakiisha maanta noo timi iyo dhammaan madaxda ciidamadaba. shaqadaani halkan maantay u yimaadeen degmada Carmo iyo bulshadoodaba aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. dhirtu waa garanaynaa Puntland ama Soomaaliya haddii la yiraahdo geed hala beero. magaalooyinka waxaa dhib weyn ku haya xoolaha ariga lagu sii daayo. marka waxaa khasab ah geedkii lagu beeri lahaa meel cidlo ah in deyr loo sameeyo, in bulkeeti ama silig lagu xidho, in geedkii 10 geed ama 20 geed qarashkii lagu beeri lahaa hal geed lagu beero. dhibaatooyinka Puntland ka jirta way xooluhu ku hayaan. waan codsanayno bulshooyinka reer Puntland inay xoolaha magaalooyinka ka saaraan si magaalooyinku u cagaarmaan oo dhir tiro badan loo beero. waa adagtay hadda inaynu guryaha gudahooda waa ku beeri karaa, laakiin shaarica in la yiraahdo geed lagu beero waxay kalifaysaa lacag tiro badan. marka waxaan filayaa PSF waa ciidanka xaqiiqdii anigu dhirta ka degma ahaan waa beeraa oo deegaanka iyo magaalooyinka la gaarsiinay. waa qoladan isku dhereerino PSF iyo si wax u beeraan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. dalkan gacan lagu dhiso, gacan amniga laga shaqeeyo. marka waxaan leenahay annaga ku hadlayna afka shacabka Puntland waa uga mahad celinaynaa shaqadan ay noo hayaan ciidamadu. mar labaad waxaan leenahay aad baa mahadsantiin taliye. bulshada iyo maamulka iyo shacab weynaha degmada Carmona waxay leeyihiin shukran mar labaad iyo mar saddexaad iyo intaanay ka badanba. boosaaso guri iyo geed baan ka dhignay insha Allah. deegaankii baan u soo dhaadhacnay. degmada tan waa nimi Carmo waxa weeyaan gobolka Bari way ka tirsan tahay. insha Allah dhirtii ugu horeysay waanu keenay. haddii idinka Rabbi ka dhiga guri iyo geed baan ka dhigi doonaa.